بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إلهي baa mahad leh maanta halkaas iskugu keenay madaxdii qaranka oo dhan intoodii badnayd ee magaalada joogtay walaalayaal dhammaan shacbiga Soomaaliland meel joogan gudiga dibadba waxaan ka tacsiyadeynayaa oo aad uga xunahay dagaalkii shalay dhacay dhibta iyo khasaare uu keenay dagaalo badan oo 8 bilood socday waa markii u horeysay ee ciidanka Soomaaliland dhibaato inta laga soo gaadho kuwii hore dagaalada hore ku dhintay ee dalka u halgamayay iyo kuwii shalay dhintayba Ilaahay ha u naxariisto jannadii firdawsa ka waraabay qoyskoodina waa ka tacsiyadeynayna iyo qarankaba iyo madaxdu waa ka tacsiyadeynayna kuwa dhaawaca ah iyo kuwa naafada ah dagaalada hore halganka ilaa maanta qaranka difaaciyena waajib qaran bay gutay Ilaahay caafimaad ha siiyo qarankuna abaalka ku leeyihiin waa ugu dadaalay khaladka ama say waanta wax u dhaceen guddi heer qarana oo baarlamaanka iyo golaha wasiirada ah ku maqan waynu darsi doonaa wixii dhacay markaasaan warbixintooda aynu helno ayaan ka jawaabi doonaa say wax u dhaceen oo dadku aad isu weydiinayaan maanta dagaalka dhacay iyo dhibta uu keenay maanta Soomaaliland maxaa la gudboon shacabka Soomaaliland marka u horeysa waxa la gudboon dagaal maalin dhibaatadiisu koow inoo tahay in aynaan siinin niyad jab ama dareen aan tognayn oo ah in ay dhacday dagaal weyn iyo dhibaato weyn oo laga baqa waxaan u sheegay shacabka Soomaaliyeed ciidanka Soomaaliland inuu ciidankii yahay inuu sidiisii yahay dhibaato way soo gaadhay laakiin xooggiisii iyo fikirkiisii iyo geesinimadiisii iyo daljacaylkiisa intiba waa sidii haddana wuu habaysan yahay oo waa degan yahay haddii alla yidhaahdo dhibaatana degdeg baynu uga soo waaqsan doonaa oo aynu uga soo aargudan doonaa cadowga iswanta inoo dhibaatadaas inaga soo gaadhay taa warwar kama laha ciidankeena iyo shacbiga toona waxaa kaloo dadka u sheegayaa waxaynala gudboon midnimo gudaheena ah oo ah marka ay qaranka tahay inaynu qaranka meel uga soo wada jeedo gudaheena tartanku waa xalaal baashirka lagu tartamaa siyaasadda lagu tartamaa nolosha dhan baa tartana laakiin waa tartan ilaashanaya qaranka guud iyo danta guud waxaan uga mahadnaqayaa xisbiga wadani iyo goliisa dhexe iyo fulinta oo shiray iyo cabdulqaadir oo la socda inay xalayna hadleen labada xisbiga saaka ay halkan noogu yimaadeen iyaga oo hawl qaran oo midaysan wada taladeeda shir baanu ka soo baxnay aanu boqolkiiba boqol isku afgaranay qaranka midnimadiisa iyo difaaciisa iyo midnimada gudahaba meel walba way jirtaa dhibaato ama xasarad dal kasta oo jira maalba dhibaato way jirtaa waa waxa madaxda loo sameystay la xaliyay waa waxa ciidamada loo sameystay waa waxa booliiska loo sameystay dhibaato iyo ummad meel ku nool way jiraan waa laga yaabaa inay jiraan tartan gudaheena khilaafyo jira laakiin waxaynu waajibaa waxaana inaynu imika si midaysan u koobno shacbiga Soomaaliland waxaan uga digayaa cadawga badan ee Soomaaliland qaramada soo bahaystay wuxuu inoo soo gashaday shaar kale oo la yiraahdo media oo iska yeelayo nin walba intuu soo duubo inuu Soomaaliland isku diro inuu dhexdeena tafraaq ka sameeyo inuu inaga kala shakisiyo taasi waa digniin aan leeyahay qaranku iyo dhag u dhigay maanta shacabka Soomaaliland oo qarnamada doonaya oo intaasoo sano soo dagaalamayay oo intaasoo hariyay u soo huray oo intaasoo maal u soo huray goonimadii Soomaaliland ee 1960 June la qaatay waa sideedii aragtidu halgankiina wuu socdaa
maalin waxaan dhibaatay dhacdeena inay jabin mayso shacbiga Soomaaliland taa uu ka adag yahay waxaan leeyahay wararka badan ee tashwiishka ah ee ummadda ku furan yaan dheg loo dhigin qaranka waa kan hawsha uu ka midisay insha Allah Soomaaliland qaranna had kasta haga dhawaa gaarayna oo xorriyadeedii 26 Juun 60 taagan uma dagaalano danaysi iyo cid ka doorbidaysa wixii si afgaran waayo Soomaaliland jira mar walba nabad ku dhawaaqnaa nabad lagu xaliyo cid walba laakiin cid hortaay karta qaranimada Soomaaliland ma jirayso ciidan iyo ummadda taasina diyaar u nahay taas waajibkeedu ahaanaya caalamka waxaan u sheegaynaa dhibaatada yar sharciyeed ee dawladda Soomaaliland girgiray inuu qarankii Soomaaliland si soo shaqeynayo oo hay'ad walba iyo ganacsigii iyo qaranku hawshooda maalmeedkeeda inay soconayso inay department kasta hadday xisbiga tahay hadday tahay ganacsi inay hawsha caad u socoto dawlad walba inta laga maqlo way ka dhacdaa laakiin propaganda socialku yaanay naga barjeyn oo ayna gelinin waxaynaan u jeedin taasina way ka digniin caalamkana waxaan u sheegayaa intii aanu nabadda ilaalinayn mantaqadan hadday tahay badda cas oo dherarka ugu badan aanu hayno iyo hadday Soomaaliland gudaheeda tahay dherarka deriska inaan awoodayadii nabadgeliyada iyo nabadii aanu haynay ee deriskana aan la wadaagaynay inay halkeedii tahay iyo caalamka loo baqan maayo qaranka Soomaaliland maalinta ka dhacay wixii dhacayna waa saxanaynaa qarankuna midnimo iyo adkaysi buu ka qaadaya dariisana wuu u sii madoobaya insha Allah waxaanu sugaynaa dhawaan Soomaaliland oo iftiinkeedii iyo mid ka sii wama yeelata midaysan dawladnimo siyaasad dhaqaale horumar xoog ka sameeyay ciidan dhammaan shacbiga Soomaaliland waa salaamaya xalay hoggaanka xisbiga wadani oo yeeshay shir degdeg ah markii arintani soo baxday waxaana kulanka ka dhashay hadalkii aan xalay jeediyay marka hadalkii xisbigu iyo kaygiiba intaas ku dhan yahay laakiin waxaan u cadeynayaa shacbiga Soomaaliland in xisbiga wadani oo ku hadlaya magaciisa uu qaranka kala midaysan yahay dhammaan hawlaha qaranka iyo difaaca qaranka oo ku celinaya mar labaad shacbiga Soomaaliland anaga waxaanu aragnaa maanta inaan ahayn wixii khilaafkeeda siyaasiga uu jiraa maalintii la xalin doonay halkeedu leeyahay laakiin maanta wax walba aan ka horeysiinaynaa midnimada shacbiga iyo qarannimada ayaa kownoo ah waana mahadsantihiin salaamu calaykum